السلام عليكم أصحابتي خالي وايد والسلام مركز دوك جوجتان ولا لي خالي قروح بنسور دوادا جنرال كوا جنرال كيني هاي اسمرتياني دي وجورجي وجورجيني مانت يا شقاد دير مالك جمعة وحي aan qabanay insha Allah ayaan idin soo gudbi doonaa iyo shaqada sida ahayd iyo sida noogu dhacday alxamdulillah hooyo kasto Soomaaliyeed waxaan leeyahay garabkaaga Ilaaha galo soo hoosh waxa way aad iyo aad ayuu cusleed xogaha maanta dhar ayaan dhaqaayay dharkii ayaan soo dhaqaysa arkaysan bacahaas ayaan ku soo guray qaybna way noo laalaabanta qaybna hadda kadib ayaan waxa rabaa inaan laalaabo soo alxamdulillah soo marka waxaan rabaa caruurta intaan ka soo kaxeenin meesha xanaanada inaan wax kasta dhag aan ka dhigo oo dharka iska kala xareeyo oo guriga iska hagaajiyo si hadhow aanan waqti badan iskaga cunin caruurteedu waqti u la qaato alxamdulillah soo halka ama meesha dheered luuqa ayaan waxaan rabaa inaan hufar-gareeyo oo dhac aan ka soo siiyo yaa ila arka ama ila qaba waxa waa xilligan oo kale ama xilli kasta ha noqoto horta caruurtu waxay ku wataan kabaha dhagxaan ciid qashin ay ku wataan soo markasto meesha dhexdheerta ama luuqa dheer waxay noqonaysaa caruurta markii la keeno ama markii baxayaan oo kale ay fadhiisanayaan oo kale ay kabaha gashanayaan ciid ay kasoo daadato kabooga ama dhagaxaantii maalintii oo dhan ay ku dheelayeen ee kabaha uu gashay ugu aruurtay oo kale ayaa kasoo daadanayso soo markaan waxaan sameeyaa huufarka ama geed lagu xaqo kale meel soka ayaan iska dhigtaa markay caruurta soo xaroodaan oo kale rag waa iska boobsiyaaba si aysan carab badan u ooleyn soo maasha Allah tabaarakallah aad ayuu hoosh kugu fududeynaysaa horta bahashan walaalayaal horta dacwan inaan idinka ahaado inaan idin sheego dhib ma aha inaan idinka qari ayaa daran laakiin wax yar oo iska canaan waxa waaye muuqaaladeeda aad ay daawashadu aad ay hooseysaa maadaama aan maqnaa wax badan soo wuxuu u baahan tahay dhiirigelin ayuu u baahan yihiin muuqaaladeeda soo muuqaaladeeda waxaan rajeynayaa inaad kor u qaadaan sii share gareysaan laagta aadan naga iloobina waayo laagta wax badan ayay naga caawinaysaa muuqaalada si aan muuqaalo badan oo anin dhiirigelin ay ugu noqoto adiga aad u daawataan insha Allah soo dhaxleertii maasha Allah tabaarakallah hadda waa iska soo dhameeyay huufarka waa soo huufar gareeyay soo huufarka waxaan dhigtay hadda jikada oo waxaan rabaa jikada kale hadhow inaan sii huufar gareeyo alaabta inta dhaqaayo kale marka halkii ama meeshii dhexdheerta ahayd saana u soo hagaajiyay kaaliska arag labadaas armaajo ayaa ii taalo oo ah kabaha aan ku wada xareeyaa way hal armaajo kala weyn anfici weysay geedahaas aan u jeedaan waxaan ku ritaa qaybna sigsaamanka qaybna yani koofida madaxa la geliyo gacmaha waxaasoo dhan ayaan kusoo aruuriyaa maadaama subax la kala cararayo ama xilliga qabowga waxaa iska badan dharkiisa iska badan abroola tira badan ama jaakadaha haddii ay noqoto gacmaha shididiisu iska badan yahay sida samarka kale xilliga kuleelaha ma aha xilliga winterka kale ayaa ka dhar badan soo dharkii ayaan hadda waxaan ku bilaabay inaan la laabo meeshaan iska soo fariistay xoogaha waxaa waaye yaa loo sahla taaganaa ma fahanteen shaqadeena ma yaro ilaah noo maqan ma fahanteen like waxa la isku dayaa in oo hoosha la iska fududeeyo oo yani intaan caruurta guriga keensanno kaleeto in hoosha ii kala yaraato ii kala fududaato oo maasha Allah tabaarakallah oo wax kasta aan dhagdhag ka siiyo waa caruurta marka soo kaxay waa badaalanaaba aniga xilliga dambe waa daalanahay haddana ma ku sii jirta xaaladda marka ku jiro aad ayaan u daalanahay weli waxaan ku jirnaa dharkeena laalaabashadiisa ayaan ku jirnaa bacda sida aan idin sheegay dharka caruurta yaryar waqti badan ayay qaadanaysaa waxaan ku doortay waxay tahay inaan guriga usoo qaato aan ku laalaabo fadhiga aanoonan stress iyo waxba igu jirin saas darteeda soo dharna qaybta waxaan soo saartay miiska ayaan soo saartay dharka caruurta qaybta kaleetana ayaa kursiga ayaa qayb ka saartay soo markaan ay tusinayo qayb dhan ayaaba soo xareeyaba caruurta waxaan jeclaa markasta inaan sameeyo dharka anigoo laalaabayo haddana inaan istaago oo dharka aan soo xareeyo si aysan waqti badan iiga qaadanin waa soo carar wifi jikada aan imaaday alaabta waxaan ku garaa diskan gabadha yar ee caawiso gabadheeda kaaliska arag gabadheeda waxaa la dhahaa ficid كرون هذا مقل جتين وماشينك ألعبت الغلقو ficid كرون wax badan iga caawisa soo alaabta xogaa waa u aruuriyaa meesha ayaan ku shubaa markaas kadibna waxaan sameeyaa hal mar ayaan u soo istaagaa dharrag oo ku wada ridaa alaabta horta mashiinka horta sinuu ku fiican yahay sinuu ku xun yahay waayo asaga iskuma aruurinayo adiga ayuu ka rabaa inuu ku aruurisid alaabta weelash wixii wasaq leh weelash inaad ka bixisid haddii aadan rabin mashiinkaaga inuu halaabin haddii aadan rabin qashin iyo waxyaabo inuu kaaga aruurto oo kaleeto soo caruur haddii ku joogto waxaa fiican inta badan eega intay ku ridi lahaayeen weelka
in marka hore si fiican loo raacsiyo oo qashinka dhan iyo cuntada wax dhan laga reebo kadibna aad ku gurtid waayo waxaa kaa yaraanaysa hadhow mashiinka inuu isxiro dhaqitaankiisa meelaha oo inay kaa galaan wasaq oo kaleeto cunto raashinka harhartay oo kaleeto inay kaa gasho oo hadhowna aad shaqo kaleeto iyo wax kale aad sii gashay laakiin haddii aad sameyso meesha alaabta lagu dhaqo kale wax dhan intaa uga reebto oo ka dhaqda marka horeeto ayaga oo raacsiis u baahno sidii in la dhaqay camal aad mashiinka ku guraysaa saas darteed ayaan ku doortay hal mar alaabta xoogaa inaan aruuriyo kadibna aan ku wada guro soo istaago gacmaha ayaan iska soo dhaqay hadartan waxaa rabaa marka ina mashiinka alaabta lagu dhaqaayo aan ku rido oomadiisa ama shaambada kadibna aan ku daaro 30 daqiiqo bis ayaan u geey doonaa insha Allah maadaama qashinka dhan suugada wax kasta aan kasoo dejiyay 30 daqiiqo ayaa ku filan 30 daqiiqo waxaa biyo kulul oo kaaliska arag ayay ku dhaqaysaa halkan waxaan kusoo diyaarsaday casho waxaa rabaa casho yar oo fudud oo kaaliska arag oo daahday inkastoo ay daahday inaan bobsiiyo caruurteeda ay jecel yihiin wax kasta waxaan sameeyaa horta markasta waxaa ka muhiimsan caruurtaada wuxuu ku cunaa wuxuu ku jecel yihiin inaad sameyso hilib aan maanta horeeta banaanka aan soo dhigay oo barafka aan karida ayaa halkaas iyaalo 2 xabo yaanyo ayaa halkaas kusoo jartay basal iyo baradho soo basashii ayaan rabaa inaan shiilo kadibna aan ku riday hilibka insha Allah soo isla arki doonaa halkan waxaa noogu qasan muufa cadeey muufada iskuma jirtay waxaa waaye muufada ay u taqaaneen ma duwaaya maanta insha Allah soo muufadaas oo kale xogaa wayara adkeed caruurta kaleeto badan aan ku soconeynin laakiin muufadan maanta aqasay waxaa waaye sida u qasay horta idima soo gelin karaa noqdo maadaama bobsiis ay ku jirtay oo cashada aan ka daahiyay caruurta waxaan rabaa 2 eber in aan u diro kadibna muufadii waxaan u soo qasay si malabax caawal soo muufa aad iyo aad u jilcan waaye halkan waxaan kusoo darsaday cusbo ayaan kusoo darsaday waxaan kaloo kusoo darsanaa wax yar oo basbaaska ma aragteen la jijibiyo kaleeto ayaan kusoo darsaday soo hilibkeeni iyo basasheeni ayaan isku soo shiili doonaa kadibna waxaa biyo yar aan dhab ku siiyaa maadaama hilibku uu yahay hilib lo waxaan rabaa hilibka inuu jilco ee caruurta ay cuni karaan kaaliska arag ayuu kusoo bixi doonaa insha Allah wax yar oo iska fudud oo cashe oo kaaliska arag ayuu kusoo bixi doontaa soo glass biyo ayaan soo qaatay biyahaas arkaysaan gab ku sii kadibna daboolka u dheereyso kadibna waxaa waaye hilibkii loo ahayd halahaas ka badan biyihiisa markuu inoo soo gursado ayaa waxaan doon doonaa aan ku dari doonaa insha Allah yaanyadii aan soo jarjartay waayo waxaa la jecel yahay reerkan maraqa inuu ku jirto yaanyo markasta suugada yaanyo inuu ku jirto maraq cad waa la neceb yahay soo marka waxaan sameeyay inaan ku soo daray yaanyadii ayaan ku soo daray wax kasta oo isku rarag waa bogsi doona insha Allah muuqaalka kama wada gaarin inaan wada duubo soo muufada saa aragtay u jilicsantaa sida malawaxii oo kaleeto indhahaas markay soo yeelato wax yar oo subag ayaan dusha kaga dadaadiyay kadibna waa gadi doonaa kaaliska arag ay ku soo baxdo muufa jileec badan oo kaaliska arag eeda hadlayso ma hadal iyo hugun toon uma baahna ma fahanteen soo kaaliska arag ay ku soo baxday sidaas ayaan ku soo wada doonaa oo ku soo dubi doonaa waxaa dabkaaga u gaabsa eeda tartiibkeeda ha u bislaato jileec lagama sheekeyn karo xitaa malawax camal u ekaatay soo markii xoogaa wax yar waa warwareejin doonaa soo maasha Allah tabaarakallah kor iyo hoosaas ayay ka soo noqotay soo insha Allah hadii aad jeclaysteen ama aad ka heshaan insha Allah mar kale to aan qasi doona ayaa idin soo gudbi doona ama idin soo wadaagi doona waxyaabihi aan ku daray maraqeena halkaas ayuu diyaar noogu yahay baradhada basasha adduunka oo ku soo daray maraqana biyo badan kama soo dhigin waayo waxaan rabay muufad maadaama aad iyo aad u jilicsan tahay oo ma baahneen biyo badan soo muufadeeni waa soo dhameynay muuf malawax la iska dhan fahanteen magac soo sameeya adig magac soo bixiya maasha Allah tabaarakallah halkaas diyaar noogu tahay soo muuqaalkeena waa gabagaba halkan waxaan ku soo shiidan doonaa basbaas afakaadho lagu daray kabsar caleen toontiisa basashiisa liin dhanaanta adduunka kaaliska arag soo muuqaalka hadaa ka heshaa muuqaalka noo sheer gareey laagtan hanaga iloobe insha Allah waa mahadsantiin walaalay quruxda badan ee qaaliga sida waqtigiina quruxda badan ay noogu horteen dhaladaas ayaan ku soo shubtay week dhan ay ku haynaysaa wuxuu ku xirantaa sida adigu u isticmaasho soo muuqaalka xig waxaa idin leeyahay khayr caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo idin rajeynaa mac salaam kulanto dambe xiisa leh